الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء جوهر حسين halkan nagala socotaan waa channelkeena Jawhar Xuseen inoo maamusho waxaan rajaynaa in caafimaad qabtaan sida aniga aan u caafimaad qabo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta xanuun sariir la saarin Allah subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado. إلهي سبحانه وتعالى هو يومك الصوماليات عرور توضع الله وسوها نونيو الله سبحانه وتعالى أي عرور توضع إيو زوجات كوضا بمصلحه هاد نحديقو رنتي عقبضو هيسوتو هو يومك ودريمي كرا هذا ودريمي كرا والله أنيقا بهويا هاي تاسنا برامج قوني ربعنا كسو سمي ولي بس ساعدها سو سعوتا ربعنا فيه واسو قليو هدو إلهي سبحانه وتعالى ورالي كنغضو إلهي سبحانه وتعالى انت مروغيسن انت لباطة هيسوتو انت نولش لدالا دعيسو انت ما انت نولشو مالي كبلابط ان مالي كبلابان إلهيهين الله سبحانه وتعالى أسا كرب فيده الله سبحانه وتعالى كربضة هكذا القاضو آمين يا رب العالمين إلهي سيدا جعلناه هنو سميو إلهي دولة عادلة هنسيو ويلشان أو لنتين أو ويلش يريرك أهانا الله سبحانه وتعالى هاونا حريستو قبري وذن الله سبحانه وتعالى ها واسعيو المهنا أولاد الله نو حفظه آمين يا رب العالمين. طبعا قصير oo waxa ku saabsan jiiraanka ama diriska inoo haya horta Soomaalida inta badan waxay aaminsan yihiin in qabriga marka lagu dhigo waxa lagu su'aash ugu weydiiso lagu weydiinayo diriskaaga ma ahan laakiin diriskaaga waajib ka saaran waay oo rasuulkeena kaleey salaatu wassalaam aadad yahuud ee diris uu leeyahay markuu waliba ayagoo dhibi jiray markuu waay uu soo booqan jiray soo salaami jiray subhanallah misna uu weydiin jiray maxaa ku dhacay dadkii soo dhigi jireen qashinkii dhihi jiray marka diris wanaaga waa wax wanaagsan diriskaagan haday ku nacaan waa dadka marka ilaahay tii rabbi haduu ku imaad waa dadka ugu horeeyo janaasada dhinaca ka qaaday dadka ugu horeeyo laakiin haday dad ku nacay ay yihiin taban dad ku duceey xataa ma waawaynaysaa oo ku adkaanaysaa qofka muslimkan afartan qofood haday u duceeyso Allah subhanahu wa ta'ala wuu u dambi dhaafaa marka waxa jiray ninka hal wiil kaliya qabay laakiin wuxuu ahaa nin aad u dhib badan diriskiisa nafta uu keenay marka Allah musta'aan ninkan aad u diriskiisa u dhibi jiray dadka diriska runtii xaxda u keenay af Soomaali waay sida filay intuu u galay aad u dhib badnaa diriskiisana runtii mar walba waxay dhihi jireen ninkan wuuna dhibay maxaa ku sameynaa ay dhihi jireen runtii diris dhibka ma wanaagsano in diriskaaga jiiraankaaga ay mar walba ka ishtakoodaan mise ninkan wuuna dhibay mise naagtan wayna dhibtay ay dhahaan ma wanaagsano waa wax aad loogu qurux badan yahay diriskaaga mar walba inay wanaag ay ka sheegaan wanaagsan diriskaaga marka hadii tii rabbi ay ku timaado inay ku dhahaan Allah qoftaas ma naga tagtay ama qofkaas ma naga tagay mar walba diriska waa wax wanaagsan geerid maxaan ugu soo dareysaa hay dhihina taas la shaki waay anagu dhan waa baxayna maalin waana la qaadaa waa baxayna shaki la'aantaas Allah musta'aan marka ninkii sidii uu ahaa maalin maalmaha kamid ah ila amaanada maalin la iska soo tooba mawtiin hortaas yaa moog in maalin lagu soo toobay maalin geedkaaga in ay caleenta magacaaga ku qoran ay ka soo go'ayso geedka in caleenta magacaaga ku qoran ay ka soo go'ayso baab rizqaagana ay ku dhacayso ajashaadana meesha ay ku dhamaanayso ma ogtahay maalin in 2 mitir lagu qodayo ma ogtahay kullu nafsun daa'iqatul maut naf walba geerida way dhadhaminaysaa shaki la'aan la shaki taas subhanallah ama 100 sano noolow ama 80 sano noolow 20 sano noolow maalin adduunkan waa ka hayaamaysaa waa ka tagaysaa hadduu ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo ilaahay qaatamada hanoo toosiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinteena ha ka dhigo maalin khayr qabto ilaahay amalkeena hanoo wanaajiyo aamin ya rabbal alamin طبعا sida hore u sheegayso dad badan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in qabriga markii koolas galiyo diriska la weydiina diriska ma ahan waxa lagu weydiina marka qabriga lagu dhigo oo munkar in nakiir ku imaadan 3 su'aalood من ربك ما دينك ما نبيك بس 3 سؤال لو ويدينا 3 سؤال سو قروح بدن هدا ugu jawaabtid oo ilaahay ku waafajiyay hada waxa noqotay qof amalkiisa wanaagsanaado oo qabrigiisa u waasacmo oo daaqad kamid ah daaqadaha jannadana qabriga loogu furo noqonaysa ilaahay ha naga dhigo kuwaas aamin ya rabbal alamin
ninkii tii rabbiya uu imaaday wuu dhintay markuu dhintay dabcan dariskii dhan waxay kasoo qeybgeli waayeen janaasadiisa waxa meesha taagan oo kaliya halka wiil uu dhalay ilaan wiilku waa aabihiisa janaasadiisana ma iska dayn karo wuu ku qasban yahay inuu asturo meydkaas wuu ku qasban yahay meydkaas inuu geeyo meeshii loogu talagalay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay taasoo ah in qabri la geliyo la aaso wiilkii runtii aabihiisii wuxuu kusoo qaaday gaariyo kusoo qaaday gaarigii markuu kusoo qaaday maxaa yiraahdaasi wuxuu keenay meesha uu ku duugi lahaa kaligiisu waa wiilkii wuxuu ku qasbanaaday inuu jiido ilaan tala kala ma hayo wuxuu sameeyay ma hayo cid saacido cid caawisa ma lahan jiiraankii dhan meeshan waxay iska ahayd meel iska qarye dadkii oo dhan way kasoo horjeesteen ninkaanoo nafta noo keena waxay dhaheen ma awoodno in aan janaasadiisa kaalin ka qaadano ama aan duugno allahuma najana allahuma najana allahuma najana walciyaadu billah ilaahay subxaanahu wa tacaala nagama dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo kuwa dhulka laga jecel yahay samaawaadkana marka naftooda loo qaado carfayso malaa'igta dhahayso aaday u caraf badan tahay yaa waay ruuxdan dhahayso ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo ilaahay kuwa uraayo malaa'igta san ka qabsato dhulka lagu soo celiyo ilaahay nagama dhigo aamiin yaa rabbal caalamiin fa waxaa dhacday marka wiilkii wuxuu ku qasbanaaday inuu jiido waxaa meeshii kasoo baxay allah mustacaan oo meeshii marayay nin iska wanaagsan ama wadadii ku socday nin iska wanaagsan oo dadka saalixiinta lagu tilmaamay allah mustacaan wuu yaabay wiilkii oo ninkan jiiday markuu arkay wuu imaaday maxaa dhaco dhahay qofka meydka maxaas ugu jiidaysaa meydka ma ixtiraamtid wuxuu yiri ninkan waa aabahaygana wuu iska dhib badnaayo dhahay dariska wuu dhibi jiray dariska aad uu dhibi jiray marka sidaas darteed dariskii dhan waxay kasoo horjeesteen inay aabahayga ay ila duugaan aabahayga ay maxaa raadaasi qabriga ila keenaan qabriga igula aasan marka sidaas daraadeed waxaan ku qasbanaaday inaan kaligayga soo wado inaan kaligaygana aan sidaan ugula dhibtoodo runtii ma garanayo dhahay wax kale aan sameeyo marka ninkiya wuxuu dhahay aniga ku saaciday ninkiya saaciday ninkiya kaalmeey ninkiya garab siiyay meeshii ay ku aaseen odaygii wuu soo baxay allah mustacaan wiilkii markuu soo baxay gurigii oo iska imaaday asigoo murugaysan oo yaaban oo wixii ku dhacay oo aad la yaaban yahay haddana uu arkay hal qof oo garab siiyo oo kaalmo u noqdo oo intaasna oo isleeyahay alxamdulilah intaasba ilaaha kuugu saqiray allah mustacaan wiilkii habeenkii wuxuu riyo ku arkay subxaan allah aabihiisoo meel qurux badan jooga aabihiisoo yani subxaan allah meel dooga biyo ah oo yani dad qurux badan ku dhex jiro riyo ku arkay runtii wuxuu yiri waa arin lama filaan ee wiilkii asigoo faraxsan uu soo toosay runtii riyadii aad ugu farxay ilaan qofka wuxuu ku sugan yahay inta badan la arkaa markuu dhinto aad ugu farxay riyadii wiilkii wuxuu yiri runtii maasha allah riyo aad u qurux badan arkay wuu soo baxay wuu soo cararay wuxuu imaaday ninkii meesha uu kula kulmay oo imaaday ninkii ilaahay amarkiisa ilaahay qadartiisa wuxuu ku arkay meeshii asigoo joogo wuxuu yiri soo faraxsan markuu u tagay wuxuu yiri aniga waan faraxsan u dhahay aad u faraxsanahay li'anno waxaan arkay riyaan arkay riyadiina waxaan ku arkay aabahaygo meel qurux badan joogo aabahaygo meel barwaaqaysan joogo aabahaygo meel aan filaynin taagane idadaan filaynin ku dhex jiree siday wax u jiraan u dhahay siday wax yihiin markaasoo wuxuu yiri alxamdulilah waan ku farxay in hadalkaas ay ila imaaday maanta allah mustacaan wuxuu yiri shalay marka adi baxday aniga kama tegin u dhahay qabriga aabahaaga waana u duceynayay waxaana dhahay ilaahayow waxaan ahay qof gacan furan oo dayuufka ama martidana karaameeyo adigana waxaa tahay allah mustacaan adoonkan dhintayna wuxuu ku yahay marti adigana waxaa tahay dadka karaameeya qofka ugu karaamada badanaa tahay ilaahu rabbi raxmaano adoonkaagan maanta yani ducada waxaa idinku sheega af Soomaali ilaahu adoonkaagan maanta adoo dayuuf ku yahay ilaahu rabbi raxmaano كرامي مركا سبحان الله وحيري الحمد لله دعادي كعل علينا إلهي سبحانه وتعالى وأقبلي الحمد لله وحانك سجاي مانتا إن قبر إي كانت قبرك إي كانت مسورك إي كانتين
wuxuu noqday mid aan aad ugu farxay oo aabahaagana insha Allah aan rajaynahay in loogu dambi dhaafay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dunuubtiisa u dhaafay biidni illaahi alkariim runtii wiilkii aad u farxay ducada bal fiiri siday u wanaagsan tahay ducada laguma qasaaro ducada qofka walaalkaaga u duceey qof haduu wax ku geysto isaga duceey qof haduu dhibaato ku geysto u duceey qof hadaa wax ka aragto u duceey inkaarta joogtada ee ma wanaagsano طبعا الله musta'aan bal fiiri in qofkan sidoo ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo ducada qofkaas ugu aqbalo oo ku celceliye in qofka walaalkaaga ka maqan hadaa u duceysidna طبعا ajirkeeda laba jibaar leedahay aad u wanaagsan tahay marka Allah musta'aan in jiraankana aan iska wanaajino diris dhibka aan iska dayno Allah musta'aan mar walba aan noqono kuwa diriska lisaankooda ka xirta kuwa diriskooda carabkooda dhab ka siista kuwa diriskooda aan wax dhibaato u geysanin kuwa diriskooda mar walba murugada iyo farxadda la qaata aan noqono mar walba aan isku dayno inaan diris wanaag aan sameeyno mar walba diriska waa wax aad u halis u ah طبعا waa wax aad arinteeda oo in badan laga hadlay marka Allah musta'aan culimada waaweyn ka hadashay Allah musta'aan rasuulkeena kaleey salatu wasalaam ina amri diriskeena ina wanaajino marka diriska mar walba aan wanaajino ilaahi subhanahu wa ta'ala na khayrka hayna soo waafajiyo ilaahi amuraha noo saqiro ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan jecelnahay oo khayrno ahana siiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala sharta iyo shaytaanka Allah subhanahu wa ta'ala hanaga qabto إلهي شرطها نجا كافي وخير كان سوا فجو آمين يا رب العالمين ولا شين جوار حسين وإذن كعسنيس إنا سبسكرايب أو صارتان أصحابتنا لو ذاكتان وحي رأيين إن كومنتيجا أو رتان هذا لايك تندير قلنا يتهى إنا أي صارتان إن قبل لكن فروق ساعة ونقطة الدعوة وها أقوه رأيو قاري عفمات إبراقة إذا رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.